wasaaradda ciyaaraha iyo sportiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa maamulka gobolka Banaadir iyo xiriirka Olombikada Soomaaliyeed ayaa waxay maanta si rasmi ah u fureen tartanka orodada oo lagu maamuusay 6 Abriil oo ah maalinta caalamiga ee ciyaaraha iyo nabadda adduunka iyo sidoo kale maalinta ciyaartoyda Soomaaliyeed waxaana furitaanka tartankani goobjoog ka ahaa orodyahanka Soomaaliyeed ee Cabdi Bila Cabdi 357 dhalinyaro oo matalayay 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo xiriirka Olombikada Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay tartankani iyadoo ay ordayeen masaafo gaaraysa 3 kiiloomitir oo isku xirta isgoosiyada lambar 4 iyo daljirka Daason iyadoo kaalinta koowaad uu ku guuleystay orodyahan Cali Iido Xasan oo kamid ahaa dhalinyarada maanta ka qayb gashay tartanka Muqdisho Mini Marathon magacaygu waa Cali Iido Xasan aadan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysto orodkan waayo waxaan dadaal u soo gelinayo waxay ahayd inaan ku guuleysto orodkan marka ma sha Allah aadan ugu faraxsanahay inaan ka kala orodkan wallahi hami aad weyn waa waxaan ku riyooday inaan matalo qarankayga waayo qof walba wadankiisu ku faana wadankiisu u dadaala waxaan u dadaalaan waxay tahay inaan wadankayga guul gaarsiiyo sida Cabdi Bila Cabdi oo maanta nala joogo runtii waa haliyay aan ku daysano orodyahanka Soomaaliyeed ee Cabdi Bila Cabdi oo ah shakhsiga ugu horeeyay ee isagoo matalaya magaca Soomaaliya ku guuleystay tartanka orodada adduunka xiliyadii bariismaadkii ayaa waxa uu tilmaamay in dhalinyarada ay mudan yihiin garab istaag dhab ah waxa loo baahan yahay ummadda oo dhan iyo dawladda oo dhan oo aanay hadal ahayn ka dhabayso ficil samaysa oo tirada dhalinyaradayadu waa mustaqbalkii maanta waa kii berrito waanu garab taaganahay wax walbana waanu u qabanaynaa sidaanu u badbaadin lahayn u barbaarin lahayn berrin ay wax u noqon lahaayeen wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in tartankan uu qayb ka yahay barnaamijyada ay wasaaradda ku dhiirigelinayso nabadda iyo sportiska furkii bisha 3 aan qabanay oo laga soo hadlay mashruuc weyn oo markii ugu horeysay dalka dhan laga hirgelinayo oo ah mashruuca lagu horumarinayo sportiga ayaa lagu horumarinayaa nabadda iyo horumarka iyo dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada mashruucaas wuxuu lagu qabanayaa oo laga fulinayaa dhammaan gobolka Banaadir iyo dawlad goboleedyada dalka isagana maanta waa noo daahfuran yahay waxaan rabnaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan inay wada noqdaan Cabdi Bila Cabdi ninkii dadaala waxaan leeyahay Cabdi Bila waa gaari karaa waana dhaafi karaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu waxa uu sheegay in horumarka iyo xasilloonida ay ku jirto gacanta ummadda Soomaaliyeed loona baahan yahay in qof kasta uu qaato doorkiisa bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay nabaddu gacanteena ay ku jirtaa horumarku gacanteena ku jiraa haddaan sidaan oo kale isu kaashano isu heshano danta guud iyo wadajirkeena iyo midnimada ka shaqeyno wax walba waa noo hirgelayaan maanta qofkii islahaa Muqdisho si nabada looguma sameyn karo tartankan oo kale indhiisa ku daawado maanta qof kastoo bulshada nabadda jecel horumarka jecel ha u noqoto maalin ay ku dhiiradaan in inta dhiman horumarka iyo nabadda gacanteena ku samaysano bulsho walba iyada ayaa wax qabsata annaga waxaan rabnaa gobolka Banaadir iyo shacabkaba shacab isku tashta caasimadda waa caasimaddii ummadda Soomaaliyeed waa muraayadii waxaan rabnaa inay u muuqato la tartanta caasimadaha kale adduunka munaasabada kadib ayaa mas'uuliyiinta waxay abaalmarino guddoonsiiyeen ciyaartoydii kaalmaha wanaagsan kala galay sida kaalinta koobaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.